hablahani uma fadhiyaan halkan inay daalacdaan duruus ka mida kuwa lagu bixiyo goobaha waxbarashada ee Soomaaliya balse waxa ay baranayaan xirfado dagaal oo looga hortagi karo tacadiyada ay haweenku la kulmaan mararka qaar markasta oo ay mushkiladu badato waxaa soo baxa dad mushkiladaasi laftigeeda xalka ka dhex gooba Faadumo Ismaaciil Maxamed waa gabar Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Muqdisho waxa ay kulliyadda caafimaadka ka dhamaysay mid ka mid ah jaamacadaha magaaladan saddex rag yihiin kale in ay ka dhan hal mar wada shubtay waxa kale isticmaashaan marka waxa kale isticmaalaa maqaskan qaata already maqaskan $1 la gadaa in gabadhu isku ku taxadirtay inay soo qaadato waa qaata sakiinta sidoo kale bukasas waqta Faadumo oo gurigeeda aan soo booqday waxa ay ii sharaxaysaa agabka ay ugu tala gashay ama ay isleedahay falalkan kufsiga ee dalka ku batay hadii gabdhuhu ay adeegsadaan oo ay goobaha waxbarashada iyo suuqyada kale u qaataan in ay noqonayso xeelad ay dabcan uga hortagi karaan qofka falkaas sameynaya waa halka kaliya ee ay u aragto Faadumo in gabdhuhu ay iskaga difaaci karaan kuwa isku dayaya inay waxyeello u geystaan sharafkooda dumarka hadana marka la kufsado Justina ma arkaysid ragii kufsiga sameeyay hore ka baxsanayaan goobta markii la raadiyo in dib loo arko qofkaasi taas sabab u noqonayso dumarka oo aan isdifaacinin oo difaac buuxdo aanan haysanin dumarka hadii ay haysan lahaayeen difaac buuxo waxay ka hortagi lahaayeen kufsiga oo mal soo gaari lahayn jirkooda waxa markaas sabab u noqon lahaa inay iskaga difaacaan agabka yar ee qaataan gabdhaha oo jooga wadamada kale marka aadayo shaqada ama waxbarashada waa qaata agabkeega because kiiskan ma ogid waqtiga uu kugu dhacayo wax emergency ah waqtiga uu sameynayo iyo waqtiga ay dadka sameynaayo bagaranaysid waa wax uu qofka ku fiirsado oo markuu ugu sameynayo qabsado adigana always ina ahaato qof protectionkiisa wada difaaciisa wata Aamina Xaaji Cilmi oo u doodo xuquuqda haweenka iyo carruurta ayaa aaminsan in tacadiyada kufsiga ee sii kordhaya iyo maandooriyaha ku soo badanaya dalka uu jiro xiriir ka dhaxeeya hadda waxaan socdaa anigu waxaan isleeyahay bardo research bay u baahan tahay cilmiyeysan in loo sameeyo inta la isku yimaado laakiin anigu caqligayga yarka waxaan dhihi lahaa anshax xumo soo saaciday oo tiro badan baa iskaashatay waxaa la rabaa waxyaalo badan oo maandooriyaal magaalada laga cunaa baa la yiri ma garanayo aniga oo ciyaalkii waaridka horta ilmahooda inay anshaxaan baa la rabaa wiil iyo gabarba magaalada Muqdisho waxaa muddooyinkii ugu dambeeyay ka dhacayay tacadiyo kufsi ah oo loo geysanayo haween Soomaaliyeed haddaba su'aasha ayaa ah fikradda gabadhan iyo dadaalada kale ee socda ma baajin karaan kiisaskaasi fawaaxishada ah Maxamuud Soofaysane TV-ga Shabeelle Muqdisho